salaamayaa Ustaad Kobac madaxda jaamacadaha ka socda agaasimaha tacliinta sare iyo madaxda hay'adaha kala duwan ganacsatada madaxda isbitaalada guud ahaan iyo saxaafadda yani ka tagay ardayda barnaamijkan ka soo qayb gashay waxaan idinku salaamayaa salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacdu salaam waxbarashada marka laga hadlayo waxay asaas u tahay aadanaha qofka markuu wax bartana halkii sanado qofka markuu wax barto waxaa yaraada boqolkiiba 10 qofkaasi faqriga ku dhici lahaa marka sidaas darteed Salaama Bank hay-ad ay ku midaysan yihiin shirkadda Hormuud waxay qayb ka qaataan ee loo yaqaana Hormuud Salaam Foundation in ardayda Soomaaliyeed ee deeqa waxbarasho siiyaan sanad walba sidoo kale Banki Islaam Somali Bank wuxuu mas'uuliyad iska saaraa adeegyada bulshada haddii ahaa lahayd social responsibility-ga ee kala duwan waxbarashada cilmi baarista sidoo kale bankigu wuxuu sameeyaa in ardayda Soomaaliyeed uu siiyo seminaaro kala duwan haddii ahaa lahayd tababaro ku saabsan waxbarashadooda sidoo kale bankigu wuxuu bixiyaa internshipyo kala duwan ardayda Soomaaliyeed iyo jaamacadaha ay siiyaan kaasoo loogu talagalay ardayda inay ku qaataan filliyada kala duwan ee bartaan warka ma sii badin doono madaxdanu waxay ka dambeysaa maanta iyo beri waxaan idin joognaa bandhiga waxbarashada Ustaad Kobac uu soo abaabulay uu soo agaasimay ilaahay khayr badan ha siiyo in aan buudkeena nagu soo booqataan oo adeegyada bangiga qayb dadka meesha jooga aan ka naho adeegyada bangiga meesha aad ka heshaan haddii ahaa lahayd aqoon furashadii iyo masarkaarkii iyo adeegyada kale ee bangiga uu bixiyo marka waxaan rajeynayaa inaan soo booqan doontaan hadduu ilaah yiraahdo waan salaamintihiin guulaysta idin leeyahay